زيارة صومال. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومسينا حرس الشبوس الأخير. صاحب ذلك أنا وماسكين ما تعرفنا حرنا هذا هو الشباب. وضمتي إذا كوين بيستدعي أنا وقبلنا اليوم شباب الضحك يا شباب الرقص تبوين كنا سوا كنا سلا سلا من الوجران مركا سلا وقتي بدأت سوا مالدا وضد دجاجة سكر كسوا بحايا ولد باريه وحواليه الفضيل يكون رئيسي للربيع ومشقيان بربطي ولد سامين في سياق جسته مركا هولها مركا إدعانا مع فتهادو لماذا وحي لما تقاسين عن ضد الدنيا أول بلد لناي وحصوصات وأدو يوم كنا ساموي أمريكا بربطي جال دلك مركا سيدا لسعتي مرش بريان وحي لسعتي وسيدا ولسعتي سامينتا أم فيعنين أوفيا التي بيها ويكويا شيء لوضع قبل يقول دلنا أو قبل شباب الله دحى يقول شباب الله بس كارهان دمنا بلعت يتولون كل حريرة دمنا أفكار يتولون كل حريرة يابا نلاصق شيء وحكم ده أفكار وكربيه وإنه مساعد حتى أنا أسبوع حرية مركا ما دام يشيل أصلهاي ده كسر مالده وحق الله قبرتي مركا ظروفها أنا أكلها يتمادى إن الكرة بيستاجو dadka dhibaatadu gaartay gacan la siiyo gaar ahaan dadka waxaysta madashuna dadaal ay wada arrintaas looga jawaabayo ama dadka habboodiisu ama hay'adu laftigeedu dadaal dhinaceeda ha muujiso marka waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano fursadda aan ugu baahno dowladda iyo maamul goboleedyada iyo maxaan ku yidhaahdaa hay-adaha gargaarka adduunka inay caawiyaan dadkaas garab istaagaan si gaara waxaan rabnaa inaan ula hadalno dadka waxaysta soomaalida ilaahay waxsiiyey maalinta la rabo inay dadkooda garab istaagaan maanta kala waaye marka waxaan leenahay garab istaaga dadka dhinac kale marka laga fiiriyo in marna daadad dadka ay qaadaan marna abaare ay jiraan laftigeeda waa arrin maskaxda aan ku hayno u baahan in aad looga fikiro webigan waa khayr ilaahayna siiyey ma labada webiba aan dhaho laakiin haddana marna waa guraan marna biyo badan ay keenaan dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isiraahdaan roobka dartiisa waa laakiin sida nala xaqiijiyey waxa ugu daran oo saameynta ugu xoogan yeeshay waa weliga saameyn waa leeyahay roobku xalay waxaa la socotay in magaalada muqdisho meelo ka mid ah ay dhibaatooyin oo roobku geystay oo biyo soo dumeen marka inta ku dhibaatootadana dhibaata kasoo gaartana allaha caawiyo muhiimadda aan usoo istaagna waxaa waa in loo istaago dadkaas in la caawiyo وانا هذا واجب نوع والله ربنا كبر خير قادنا كلام ضد كإلهي أو حول السجى أو ما أنت أودي كره إن أنا وحول غير يسنين قفل أركب أنت تبرتيس أو كركرة إن الله فضل يسنين كسوقات ما أنت أبغى أبغى أنا وقرب استعجب ضد اللي بعتده بيعرف وسيلة سوق لما هدي أنا بغاب الكريم وضد كي يقولوا لي كبحان رب وحلا صعد غضب كان عائل وحياة على صعد waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed meel joogaan baa loo soo gudbiyo gudaha iyo dibadda jooga laftooda waxaa laga yaabaa inay wax uun ka qayb qaadan karaan inta ay yihiin dowladihii ku howlanaay oo soo dhaqi jiray wanaagga iyo inay dadka garab siiyaan ayagana annagu uga mahadcelinayna wixii hore ku sameeyaan haddana waxaan leenahay sidoo kale baahida weli waa taagan tahay waxaan rajaynaynaa inaan gaarno webigaasna inuu biyihiisa noo haayo marka ay bataan meelo lagu kaydiyo aan sameeyno insha Allah tabaaraka wa taala si fiican looga faa'iideysto dadkaan hadda maalin walba dhibaatada haysato inay dhibaatada ka baxaan oo ay noqdaan dad ka qayb qaata adduunka wax soo saarkiisa ay ka qayb qaata inay noqdaan rajaynayna oo gacantaaga iyo baahida laga baxo laakiin haddana waxaa dhibaatin marka dhibaatada jirto lagama indha daboola karo waa in mataqaanaa farta lagu fiiqaa la isgarab istaagaa dalkaan haddisaan ahaa jirana waa ka fiicnaa jiray marka annaga inuu xirantay inaan dadaalno oo aragti fiican oo dalka uu ku horumari karo oo keeni karta in dalkaan oo ka baxa dhibaatada inaan ka shaqeyno waxaan aaminsanahay maanta in aragtidaas ay ku weyn tahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba
waxa muhiimka ah taas waaye oo in laga baxo dhibaatada ah marka aad iyo aad ma santin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh madaxweynaha dhameeyey waa kulanka maanta intaas oo ku ekaanay dadka Soomaaliyeed ee waxa haysta weliba Ilaahay wuxuu Allah u barakeeyay in dadkaas walaalaha ah oo dhibaatada ay soo gaartay in la kaalmeeyo muhiimadda ugu weyn waa intaas madasha xisbiyada qaran insha Allah taala wixii karaankeeda ah ayay uga qayb qaadan doontaa gurmadkaas sidii marar hore badan dhacay oo uga qayb qaadatay kana haddii aan yiraahdo way ka qayb qaadanaysaa laakiin haddana waxaan kuma filin inta soo tagna ugu hadda qolo oo hal qolo oo waa ku filan tahay la leeyahay meesha aad ma jirtee aan xooggeena isu geyno saxaafadda Soomaaliyeedna in ay dadka Soomaaliyeed tusto dhibaatada iyo duruufaha dadkaas haystaahay aad iyo aad muhiim u tahay mar kale waxaan raacayaa codkii madaxweynaha ee dadka Soomaaliyeed inta Ilaahay wax u dhiibay walaalooda Soomaaliyeed ee maanta baahan ee dhibaatadaas ay la soo dirsay iska xamaasho iska shaqaysto noloshooda haystay ahaan jireen laakiin maanta duruufo gaar ah yimid oo kalifaya in maanta loo gurmado oo muxuu ahaa duruufaas gaarka laga bixiyo waaye warka ugu weynsan marka aad iyo aad u mahadsantihiin muraadku waa intaas aan meel kastoo ay joognaba aan u istaagno walaalahayna maanta duruufaha gaarka kooban ay soo wajaheen muddada kooban ay duruufaas ku jiraan wixii aan la gaari karna aan la gaarno midda kale madaxweynuhu oo ka hadlo mustaqbalka fog iyo mushkiladaha soo noqnoqotay sidii loo daweyn lahaana dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda iskaashaday u baahan tahay ayadana waqtiga u baahan tahay waqtigeeda muxuu ahay ayadana iman doona diyaarada aad iyo aad ma santiin maadaama soo muuqateen oo saxaafadda soo istaagteen maxaa jira arrin siyaasadeed oo mustaqbalka siyaasadda doorashada ah oo Soomaaliya ay shaqo haya oo madaxdii jiraan mowqifka madasha xisbiyada qaran dad badan ayaa sugaya waxa laga filan karaa Soomaaliya iyo mustaqbalka doorashada aad iyo aad ma santiin anagu madasha mowqifkeeda ku aadan doorashada ma qarsoona qoraal ahaan waa qoraal idaacadaha ka sheegnay shaqooyin badan oo ku saabsan doorashada oo muddo hore in la soo qabta ay ahayd oo la soo qaban waayay ayaa jira maanta waxaan joognaa muxuu ahay bishii July yaan sii gabagabadeedii aan ku sii jirnay August iyo September October 15 waa waqtiga oo senator ama xildhibaan ugu horeeyay baarlamaanka waqtiga la doortay waaye ilaa muxuu ahay sida la sheegay December afkada laga gaarayna waa baarlamaanka xilligiisa ku egyahay madaxweynuhu waa ka sii baxay waxa asalka doorashada Soomaaliya ka asalka waa baarlamaanka haddii baarlamaan aanu joogin jidkan aan ku soo jirin oo aanay muuqanin sidii baarlamaanku imaan lahaa waa arrinta khatarta leh oo aan ka diiday in faraaq dastuuri ah oo crisis dalka galana in badan ayadana aan dawladda iyo hoggaanka maanta joogo laakiin weli waxba kama soo 3 sano ay bartay soo dhaafan waxba lagama qaban maanta oo gabagabadii la joogana weli wadada la aaday afartii su'aalood ay sheegi jirnay weli la jawaab looma hayo doorasho ma dhacayso maanta qof si rasmi uga jawaabi karo waa dhacay kara maaha doorashada dhacaysa waa nooceen lagama jawaabi karo ayada muxuu ahaa yaa maamulaya lama garanayo weli doorashada marka su'aalahaas waa kuwa weliga sheegi jirnay su'aalaha hal laga jawaabo haddaa aragtada xasuusteen waa su'aalihii 2017 bilowgeedii gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari oo yiri waxa loo baahan yahay waa maanta shaqadeeda hal qabto waraantii 2000 oo yiri 2019 doorashada ma qaban karayaan leeyahay maanta hadii la qaban karo ama la qaban karo doorashada 2019 ka carray ku qiimeeyay Jawaari gudoomiyaha Jawaari laakiin 2020kii bartamaheedii ka bacdi doorashada ma qaban karo isla la leeyahay marka arrin waa waqti midaas وسمرات بعضها كسعودة لبضي فعل كب الدولة الصومالية اللي هي دولة بدعية دولة سلطة ورجينا إلى محور إن أي وحفي عنه ومد الصومالي كفحان ومد وفي عنه وذلك الجهوية وكجواب سؤالات إن كسر بحوار رجينا يعني سيدا صار بدعينا لكن سيدا الرسم جاء مدش موقف كده وحواية دورشين ما دام وحي إلا سوق الطلاب أنا اللي قبله دور شكست نوعي دونتها عاطي وانت لغا ودا تشابه dadka Soomaalidu isku raaceen oo isla ogolaaday ma aha inta ku Soomaaliyeed joogto kaliya ma inta ka maqan inta loo soo bandhigay oo loo yeeray ama loo yimid laga tixgeliyay ogolaadeen doorashadaas aan uga shaqo doorasho ah mid gaar ah madasho ay leedahay oo ay gooni u cararaysaa ay jirto waxaan rabnaa doorasho wada ogol ah raali laga yahay maadaama sharcigi
doorashadii loo sameeyey iyo waqtigii loo sameeyey kuma qabsoomi karta la yiri oo guddigii madaxa bannaanaa uu yiri oo dowlad goboleedyadii ay muxuu ahay baaqo ugu horreeyay musuqmaasuq ka soo saareen ahayd doorasho qof cod ma dhici karto maanta marka wadatashigaasay joogtaa wixii lagu heshiiyo oo la isla qaato taasaa doorasho model u ah muxuu ahay madasho taasayna taageersan tahay marka kadibta degdegina waa idin joognaa maanta waxaa la rabaa inaad adiga laftigiina kala raba inay ka qayb qaataan dadka inay wada gaarsiiyaan marka siyaasadda u kaadsada shir markuu soo dhamaado shiraad ku yeelana waa la ka rajaa